waxaynu ka hadlaynaa qodobkan maxay tuulooyinku u kordheen tuulooyinku berigii hore waxa jiri jiray markay meel abaar noqoto ayaa reer guraagu way ka guuri jireen meesha dabadeedna meesha reeru degaan baa maxaad yar laga furan jiray maxaayada yar marka ay meesha reeru ka guuraan ee roobku dooye nimcada noqoto meesha yar way iska burburi jirto meel cidila ma ahaan jirin imaka sidii hore maaha meeshii yare marka reeruhu meel abaar ka dhacay meel kala degaan maxaayada laga furay baa tuulo laga dhigay imaka oo dadku ka dhigaan ninka markaa degayna waa lagu magacaabaa waxa loo baahan yahay tuulada ninkaasi degay ee uu maalmaha shaaha ku kariyay in dawladdu ka war hayso meel wal oo laga dhiso maxaayad yarba oo cidda ku shaqali loo soo sheego la ilaaliyo si meesha reeruhu u degeen ay noqoto dhul daaqsimeed ama dhul waayo tuuladu waxay keentaa in meesha aaga ku dhow dhima abaar noqdaan ama ay nabaad guuraan marka tuulooyinku imaka inay badan yihiin waa la ogyahay oo meel walba ay tuulo laga sameeyay laakiin waxaasoo dhan waxa ku shaqale ama awoodaheeda la dawladda waxaan u soo jeedinaynaa inay waxyaabaha noocaas ee dhulka caynkaas ee la iska degayay la tuuleynayay ee tobanka isku jira inay wax ka qabato oo ay fiiro gaar ah u yeelato iyada gudayo dabadba dhulka ka mas'uula taa intaasaan kaga baxayaa tuulooyin baa laga hadlayaa waxaan u yara gudbayaa iyagana waxa jira Somaliland 30 sanadood ayay jirtay intaasoo doorasho ayay qabsatay waxa jira 6 tuulo oo qoygan ku yaala oo aan doorasho ka dhicin inta oo xuquuqdoodii iyo wixii ay lahaayeenba ay maqan yihiin nabadda waa laga shaqeeyaa oo waynaga ka shaqeynaa nabadda hadday dawlad tahay iyo hadday guurti tahayba waxaan soo jeedin lahaa 6 tuulo dad baa xuquuqdoodii ku maqan tahay in xal laga gaadho waxaan leeyahay tuulooyin baynu ka hadlaynaa tuulooyinkaas xuquuqdoodii baa maqan